السلام عليكم وعليكم السلام دمانtiin soo dhawaada saaxiibayaal isku soo noqod wanaagsan dabcan muddo bil iyo xoogaa ayaan ka maqnaa channelka waa ka xumahay inta ayaan ka maqnaa muuqaalo ay idin soo gudbinin xoogaa waxaan ku mashquulsanaa arrimo jaamacadeed sa ogtihiin arday aan ahay jaamacadeed oo master sameynayo marka imtixaano iyo waxyaabaan lahaa marka sidaas ayaan hawada oga maqnaa oo aan u yar mashquulay marka waxaan rajeynayaa isku soo noqonay insha Allah muuqaalada ay barteen iyo kuwa kale oo kasii wanaagsanba waa idin soo gudbin doonaa ku soo dhawo channelka hadii aad ku cusub tahay magacaygu waa Maxamed Farxaan hadii channelka ku cusub tahay subscribe saaro muuqaalada halkan aan soo dhigana like saar sidoo badan ay u gaaraan waa kaaga mahadcelinaya muddo ayaan ka maqnaa channelka insha Allah hadartaana waxaan rajeynayaa inaan muuqaalada dib kugu soo celiyo walow ay jirto inaan wali mashquul kale aan gali doono ay u badan tahay saasay tahay balse haddii ii suurtagal weydaan kaamirada soo hor fadhiisto kaamirada gadaashada ayaan kaga soo gudbin doonaa muuqaalada insha Allah sidoo kale waxaa jirto arrimaha admissionka ee jaamacadaha haddii aad u baahan tahay admission waa ila soo xiriiri kartaa waa kaa caawin karaa haddii ay tahay master haddii ay tahay bachelor labadaba waa kaa caawin doonaa insha Allah sida ku heleed warqadda jaamacadda sababtoo ah halkan imaashaheeda Qobrus waxaa muhiimka ah marka ugu horeyso inaad heshid warqad jaamacadeed fiisaha ay u dhigantaa warqadda jaamacadeed oo warqadda aad ku soo bixi lahayd marka haddii aad diyaar tahay oo aad admission u baahan tahay Instagram-kan igala soo xiriir fariintaada ii soo gudbi insha Allah WhatsApp-kayga ama meesha aad jeceshahay inaad iigu soo gudbiso dokumentiyashaada ayaan kuu soo diri doonaa saas darteedna warqadaada admissionka sidaas ayaa ku heli doontaa admissionka haddii aan xogin ka siiyo kooban wuxuu ku soo baxaa horta adiga 10 bari ilaa 15 bari walow masterka xoogaa waqti inay qaadato laga yaabo ilaa 15 bari inay wax raacaan waa macquul laakiin bachelorka way fududahay 10 bari inay ka soo hormartaa laga yaabaa haddii ugu badato uu daahana wuxuu ku soo bixi karaa bachelorka admissionkiisa 10 bari marka masterka xoogaa uu yardaha sababtoo ah marka master tahay waxaa jiro inaad laga fiiriyo koorsooyinkaagi departmentyaasha ay qusayso loo geeyo waxaa jira wax bridging course la dhaho haddii lacala waxa aad soo baratay iyo wax hadda aad baranaysid oo masterka aad ka sameynaysid haddaysan islahayn oo laba wax ay kala yihiin in departmentiga loo geeyo wixii maadooyin u baahan tahay ay ka maqan bridging course ahaan lagaaga dhigo oo halkaas ku qaato marka xoogaa processkaas wax yar waqti qaato marka dabcan waxaan filayaa dadka masterka ah ee admissionada qaar ay jiraan aan u xareeyay inay sugi doonaan marka sidaas inaad la socotaan dulqaadkeeda aad sameysaan ayaan jeclaan lahaa haddii bachelor aad tahay oo shahaado dugsi sare aad haysatid baasaboorna aad haysatid sawir teesara aad haysatid intaas kaliya ayaa ii soo diraysaa admissionkaadana waa kugu xarin doonaa insha Allah haddii master aad tahay shahaado bachelor ah iyo waxaa lagaga baahan yahay transcriptiga waa warqadda maadooyinka dhan semester 1 ilaa semesterka ugu dambeeyay ay ku qoran yihiin macluumaadkooda maaragtay total score-ka keentay GPA-ga waxyaabahaas ay ku qoran yihiin marka transcripting waa taas warqadda transcriptiga ah baasaboorka iyo sawir teesara ayaa laga rabaa waa haddii master aad tahay sidoo kale waxaa jirta su'aal qof ardayda kamid ah ama dadka meeshan ku xiran channelka ku xiran kamid ah ay soo weydiiyay dabcan waa uga jawaabay oo waan reply ayaan u galay laakiin haddana inaan mar kale ugu celiyo waa jeclaan lahaa si uu si faahfaahsan ugu fahmo su'aashiisu waxay ahayd programmingka markii jaamacadda la joogo ama jaamacad markaa rabtid inaad dhigatid oo programming u baahan tahay programmingka faculty gooni amiya oo gaar loo barto ama wuxuu ku dhex jiraa maadooyin kale ee la barto marka su'aashiisu taas ayay ahayd walaal marka ugu horeyso horta programmingka web developmentiga waxyaabahaas oo dhan faculty gooni oo jaamacadda gooni looga barta maaha waxaa jiro facultyyaal waaweyn oo computer science leh IT leh kuwaasaa marka lagu dhex bartaa oo ay ku dhex jirtaa marka hadduu batchkaagu yahay computer science ama hadduu IT yahay dabcan waxaa helaysaa programmingkii web developmentigii waxyaabahaas oo dhan ayaad ku baranaysaa marka faculty gooni ama ahan kuwaas ayaa lagu dhex qaataa haddii aad rabtid inaad ku takhasustid dabcan jaamacadda 100% kuma wada barayso wax walbo kaliya 25% bas ay ku baraysaa wixii kale dadaal in adiga la imaado ayaa lagaaga baahan yahay marka haddii aad u baahan tahay inaad takhasus aad ka samaysid programmingka jaamacadda markii aad ka dhigatid oo aad fahanto inaad class gooni ah qaadatid oo banaanka aad ka baratid
meelo gooni ah lagu bartaa jirto online ha noqoto meel class oo caadi ah oo aad xaadiraysid ha noqoto walow online creatorkiis aad ku baran kartidba marka inaad gooni u baratid aad takhasuskaaga aad gooni u dhisatid ayaan kugula talin lahaa si lamida web developmentiga asagana sidoo kale marka waxyaabahaas unada u baahan tahay takhasus gooni ah ka samayso gooni u baro shahaadooyin waxaa jira la qaato waxyaabahaas aad qaadanaysaa marka sidaas ayaana takhasuskaaga aad ku samaysan kartaa sidoo kale qodobka ugu dambeeya oo ah scholarship dad badanaa jiray oo scholarship u baahan isoo weydiiyey sidai ku heli karaan oo arday ah marka insha Allah muuqaalka xiga ayaan ka sameyn doonaa sida scholarship-yada lagu heli karo meelaha ka xareysan kartid noocyada ay kala tahay iyo waxyaabahaas oo dhan faahfaahintaas scholarship-ka ku saabsan muuqaalka ku xiga ayaad ku heli doontaa si uusan kuu dhaafin kaliya waxaa u baahan tahay inaad subscribe saaratid gambalaalkan aad furatid muuqaalkan like saar haddii aad ka heshay waa ku mahadsantahay daawashada muuqaalka sida ugu xiranta channelkan waa kaaga mahad celinayaa asxaabtaada la share garee muuqaalada halkan aan soo geliyo wixii fikri farin aad noo haysidna comment-ga noogu reeb sidoo kale ha ilowin inaad Instagram-kii aad soo follow gareysid ay halkaas adiga la socotid ku mahadsantahay intaan ku kulmayna muuqaalka xiga insha Allah waxaan kaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo